mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fursad siiyay maansheegi inaan kaga faa'iideysto furidda waddooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. waxaan halkan u imid in aan indhahayga ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyay ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka Soomaaliyeed. aniga markaan shakhsi ahaan lafsadeyda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha waddooyinka. runtii waan garkaa dibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha waddooyinka magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culeyskii ay soo mareen waddooyinkii faraha badnaa ee waddooyinka magaalada ay xirnaayeen. walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas'uuliyad dhammaanteen oo wada saaran. fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho. runtii waa xanuunsateen, waa dhibaatooteen, carruurtiinni iskool way aadi waayeen, qofkiinnii xanuunsanaa, qofkiinnii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad way u heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas, aniga iyo madaxda iga sarrayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu horreeyo oo ka daqanayna arrintaas, inaad nala qaadaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Muqdisho haddaad tihiin mas'uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka. sababtaas saa u leeyahay waxaa weeye dadka dhibka loo geysanayo, dadka idiin ogoleen inaad horumar gaartaan, dadka idiin ogoleen inay carruurtiina barato, inaad isbitaalaadka tagtaan, inay hooyooyinka soo umulaan, waa dad annaga nagu dhex jiro. dadka innaga nagu dhex jiro ee dhallinyarada u badan ee habaabsan ee dulmiga dhexdeenna ka wado. waxaan rabaa dad fara ku tirisa ayaa guryahooda ku qarinayo, dad fara ku tirisa ayaa ogo meelaha dhibka laga soo ogo. nala shaqeeya haddaa shacabka Soomaaliyeed tihiin. keligeen mas'uuliyad ma qaadi karno haddaadan idinka nala qaadin. hal fari fool ma dhaqdo. waxaan idinka codsanayaa, annagana dan noogu jirtaa, idinkana dan idinkugu jirtaa, inaad dadkaas faraha yar ee dhibka nagu hayo aad soo sheegtaan oo aad la wadaagtaan ciidamada amniga. ma ahan mustaqbalkeennii, carruurteennii, hooyooyinkeennii inay dhibkaa u maraan 4 qofood oo nabadiid ah. marka idinka ayaan rabaa inaan mas'uuliyaddeeda ku soo rejiyo. waddooyinkii hadda qaar baa la furay, qaarna way dhiman yihiin. qaarka la furay waxay tusaale u noqonayaan kuwa dhiman in la dhammaystiro. sababtoo ah waxaan tijaabinaynaa inay shacabka nala shaqeeyaan, oo ay dhinacayna istaagaan, oo ay noo soo sheegaan dadka dhibka wada, si aan uga hortagno waddooyinkana dhammaan magaalada ay nabad u noqoto, waddooyinkana loo furo. soo celinaya kuwaas oo iyagana furi doono insha Allah. oo ah dadkiinii, wiilashiinii, walaalihiinii, gabdhihiinii, inaad maxaa aan halkan uga soo yeedinaa mahad laaran sida ay uga qayb qaateen halka iyo deganaanta magaalada Muqdisho horena loo sii wado. waxaan shacabka ku nool caasimadda ugu mahad celinayaa dulqaadkii ay muujiyeen muddada dheer. raalli ahaada mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad nala shaqeeya. waa mahadsan.